sidee lacag loo soo dhigtaa Binance-ga laba qaab ayaa u soo dhigi kartaa qaybta kore ku qoran tahay add funds waa taaba kartaa sidoo kale waxaa taaba kartaa assets-ka ayaa taaba kartaa labadaba waa ku bannaan tahay oo qaybtan ku hoos jirta xaggana bannaanka ka taala labadaba waa okay marka maadaama cusub tahay waxaad taabanaysaa add funds taaba marka add funds markaa taabatid optionska marka oo ku soo baxaya saddexda u koreysa marka wax shaqo kuma lihid qaybta marka u hooseysa ayaa la rabaa inaad isticmaasho oo ah I have crypto assets marka waxaa leedahay deposit crypto ayaa leedahay send crypto to your Binance account okay marka intaad samaysid maxaa rabtaa marka inaad soo dhigato maxaa soo dhiganaysaa marka waxaa soo dhiga rabtaa lacag USDT oo stable coin USDT ayaa dooranaysaa USDT ga markaad dooratid meesha marka waa networks ama xawaaladihii aad lacagta ku diri lahayd oo isticmaali lahayd waa TRC20 Tron ayaa iska leh BEP20 ga oo smart BEP20 ga oo leedahay BNB Smart Chain-ka Aptos Polygon Ethereum ERC20 waxaa dhan waa xawaalado Arbitrum 1 Solana Open Network Avax Chain Optimism waxaan dhan marka waxa waaye waa xawaalado la isticmaalo waa marka waa xawaalado u dhigma xawaaladaha Dahabshiil Taj ML ay u dhigmaan marka waxaan dooranaynaa BEP20 oo kale ayaan dooranaynaa Soomaalidu waxay aad u isticmaalaan adresska TRC20 ay aad u isticmaalaan sababtoo ma fahansana qiimaha BEP20 aniga ahaan laakiin BEP20 ay aad u isticmaalaan sababtoo ah haddii laba user oo Binance isku dirayso waxa ma goosto haddii aad maad exchange kale u diraysid oo kale ama wallet kale ku diraysid wax yar buu ka goosanaya marka BEP20 mar walba isticmaal isaga ayaa fee ahaan aad u jaban marka waxaan dooranaynaa BNB Smart Chain BEP20 ayaan dooranaynaa BEP20 markaan doorano waxay noo soo baxa marka QR code iyo address ayaa soo baxa marka addresska marka waa qaadina waa koobiyahena meeshaan marka koobiga geeska taabanaysaa wallet address copied ee lagu yiri marka waxaad tegaysaa meesha ku dir lahayd tusaale ahaan haddii WhatsApp ku kala ahaa lahayd Telegram haddii ahaa lahayd meesha tegaysaa paste ayaa ku leedahay saas ugu diraysaa waxaa shardiya marka qofkeena u sheegtid network ay isticmaalaysid oo tusaale ahaan waxaa leedahay marka address ku dirto waxaa leedahay ama korkiisa ku qor ama hoostiisa ku qor BNB Smart Chain BEP20 ayaa isticmaalayaa leedahay asagoo inuu kula isticmaalaa BEP20 marka different network ma isticmaali kartaan labadeena waa inaad isticmaashaan same network ama xawaalad isku mid ah waa inaad isticmaashaan tusaale kale haddaan ku siiyo waxay la micno tahay haddii qof UK jooga uu lacag ku soo diro adiga Muqdisho jooga oo ku yiraahdo xawaalada Taj tag haddaad Dahabshiil tagtay ka war Dahabshiil ku qosli waxa ku leedahay maarta anaga lacag uma soo dirin ninkaana Taj buu isticmaalay marka sidaas ayay u kala duwan yihiin sidoo kale qofka lacagta ku diraya hadduu kula joogo waxaa isticmaali kartaa QR code-ka ayuu isticmaalaa kaamirada furana QR code ku saarna dag lacagtu gelina automatically hore ka soo qabsanaysaa